dhawaan markaad hadalkaasi jeedisay aad taliyaha booliska wasiirka arrimaha gudaha eedeysay taliyaha ciidanka booliska uu hadlay si adag baan u hadlay ma la odhan karaa jawaabtaasi adiga kugu socotay hadeer haddii ka daba tegi maayo aniga cabdilaahi laba nin oo ilmaadeen baanu nahay isku kulliyad baanu nahay anigaa baxsaday oo taga garooway raggaygii iyo tiknikadaydii oo nabad qabataan keenay isaga waxaa la weydiinayaa ciidankiisii qarankeena laafcaanood waa sida maxaa ka wadaal iyagoo aan dhammayn buu yimi la keenay miyaan waddanku markaasi madaxweyne lahayn oo musabbix miyaan madaxweyne qaranka madaxweynuhu dadka ma difaaco dalka ma difaaco midhaha wax difaaca ciidankaa difaaca saraakiishaa difaacda madaxweynuhu kursigu fadhiya siyaasaduuna hogaamiya siyaasadda dalkuuna hogaamiya madaxweyne hore ma lacag baa jirtay waana ka qaatay guryaha ku dhistay xad ka sheekeeda musabbix lacagtaad ka qaatay guriga ku dhistay waxaan ku dhisan waayay waayo cashuurtii dadkayga aan bar qaatay bay marka miyaan xaaraan kuga hayn dee waa cashuurtii dadkayga ayaan bar qaatay waa dalka waan u soo wadaagay miyaan xaaraan kuga hayn maxay uga hanaysaa maxay uga cashuur bixiyaan ilaa kubanaan sana laga qaadiyay 4 sana laga qaadiyay marka maxaa sababta lagu siiyay lacagta malaaluush qaranka laga laaluushiyay ma ahayn siyaasadii aan saruugay ayaan kaga bedeshay markii dambana waanu heshinay libaxa inta lacagtaas maxaa waa ku siiyay adigu xisaabiyaadka waa ku siiyay adeer ilaahay misi gaadhis marka war waxa ka bax laba nin oo xusu dhiibay hawshooda laba galo wariyaha wariyanimadana waxba yeelay